وعن أولا أكسنا إذ الأهان تيمبا داوضيال ديجستيال ميل والبض عالم كجوتانا ومركل أيو برنامج كي هرو مرة برنامج كان هرو مرة أيانا الله باكسو قادنا قار كميدا هرو مردي إيوه وحقبض يدي وقدم بيي أو كطلاب صدي قبل كبنادر يدق موينكا هو ككوبا يهيا برنامج كان هرو مرة هيا وحا آلابا هل كان إذن كلا سعودسية محمد علي جوحا عشان طبعاً جونا سنة كان لبضو كونيو سيدية طبعاً كهيا معمولك قبل كبنادر حل الدنبي وهابين قصو حري ترتن كبدا عكتا هي رمضان كا دقمدا ورطن بدا قدوميها قبل كبنادر مدني عبد الرحمن عمر عثمان انجينير يريسو هيا حل الدنبي وهابينكي كسو حري دقمدا ورطن بدا tartan kubadeed oo Ramadaankii oo dhan ka socday magaalada Muqdisho iyada oo aan horey looga baran degmada warta nabadda in xilli habeenkii waliba xilli dambe lagu ciyaaro kubadda lana soo gabagabeeyo midna haya dad badan oo ku nool magaalada Muqdisho ku sheegeen horumar ay ku tallaabsatay degmada warta nabadda maamulka gobolka Banaadir haya waxa uu sheegay inuu si weyn diiradda u saarayo sidii magaalada Muqdisho ku noqon lahayd magaalada nabadda iyo horumarka 16 جون سنة كان 2018 ayaa maamulka gobolka Banaadir soo xiray tartan kubadeed lagu qabtay degmada Kaarana gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariiso haya degmada Kaarana ee magaalada Muqdisho ku soo xiray tartan kubadeed oo socday bisha Ramadaan oo dhan tartankan haya ciyaartoyda degmada Kaarana ku loolamayeen koob bil walba oo Ramadaan la dhigo ugu dambeyntiina tartankaasi halkaasi lagu soo gabagabeeyay iyadoo labadii kooxood oo soo baxay ciyaarta kama dambaysta ahayd lagu gudoonsiiyay halkaasi abaalmarino ay ku muteesteen dadaalkii dheeraa ay u soo galeen si ay u hantaan koobkaasi maamulka gobolka Banaadir ayaa kaalin mug leh ka qaadanaya horumarinta isboortiga gobolka Banaadir si gobolku u noqdo mid dhan walba ka horumarsan 17 جون سنة كان 2018 ayaa duqa Muqdisho shacabka degmada Daynile uga mahad celiyay horumarka ay ka sameeyeen degmadooda kuna booriyay inay si laba jibaaraan dadaalkooda duqa Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhiirigeliyay shacabka ku dhaqan degmada Daynile oo horumar la taaban karo ka sameeyeen degmadooda si weyn uga mahad celiyay talaabooyinka aadka wanaagsan ay u qaadeen dhanka horumarka gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in hadii shacabka iyo maamulka ay wada shaqeeyaan in horumar la taaban karo ay gaari karto caasimadda Muqdisho shacabka Muqdisho ayaa iyagana lagu booriyay inay ka qayb qaataan horumarka caasimadda iyo bilicdeeda si dhaqso loo gaaro meesha la tiigsanayo in la gaaro oo ah in la helo caasimad nadiif ah bilicsan nabad ah barwaaqana ah waxaan kala ballan qaadayna anaga maamulka gobolka Banaadir hadaan nahay horumarka caasimadda waxay noo tahay ahmiyad gaar ah ayay noo leedahay waad aragteen hore waxaan u bilaabnay in dhismooyinka wadooyinka oo aan wadooyin fulinay qaarna dhamaaday qaarna socdo 17 جون سنة كان 2018 ayaa maamulka gobolka Banaadir munaasabad mahad celin ah u sameeyay dawladda iyo dadka Turkiya
maamulka gobolka Banaadir oo ka duulaya dhanka wanaaga garashada qadarinta iyo mahadinta ayaa munaasabad mahadnaq iyo wanaag muujin u qabtay dawladda Turkiga iyo shacabkeeda midaasi oo ku aadanayd howlaha agar la'aanta iyo horumarada ay ka fulinayaan walaalaha Turkiga Soomaaliya ayaa maamulka gobolka Banaadir iyo shacabkuba gartay inay u mahad celiyaan dawladda Turkiga iyo shacabkeeda dawladda Turkiga oo ah wadan wax badan ka bedelay maalmihii mugdiga maalmihii murugada maalmihii macluusha maalmihii caalamku naga jeestay aduqa muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariso oo wakiilka ah shacabka gobolka Banaadir ayaa uga mahad celiyay dawladda iyo shacabka Turkiga taageerada walaaltinimo ee mar walba ay la garab taagan yihiin dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan dalka gudihiisa midaasi oo ku aadan mashaariicda horumarineed ee ka fulinayaan caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya inaan tusno sida shacabka Soomaaliyeed oo mar walba ugu qanacsan yahay una fahamsan yahay qofka walaalka dhabta ah cidda uu yahay ayna qireen in Turkigu uu yahay walaalaha dhabta ah ee Soomaaliyeed munaasabada si weyn oo heer sare ah loo soo abaabulay oo loogu mahad celinayay dawladda iyo shacabka Turkiga ayaa lagu qabtay aqalka dawladda hoose ee Xamar midaasi oo si weyn loogu nuuxnuuxsaday hoostana laga xariiqay in marnaba la ilaabi doonin habaalka Turkiga u gashay ummadda Soomaaliyeed oo mar walba la garab taagan taageero hiil iyo hooba oo dhan kasta xafladan caawa waxaan ugu talagalnay inaan walaalaheena Turkida uga mahad celinno garab istaagii iyo walaaltinimadii ay Soomaaliya la garab istaageen dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaan uga mahad celinaynaa madaxweynaha Turkiga iyo dawladda Turkiga iyo shacabka Turkiga oo dhan Rajab Tayyip Erdogan wuxuu ahaa geesi u istaagay muslimiinta caalamka oo dhan isla markaana qaatay riski in uu yimaado dalkan oo markaas marxaladiisu aysan aad u wanaagsaneen isagoo ka eegay dhanka bini'aadanimada sheegayna in qof muslina meel uu ku dhimanayo in uu dantiisa iyo amnigiisa ka fikiray inaysan ahayn inay tahay si degdeg ah in loogu gurmado gurmadkaasna wuxuu ahaa kii caalamka oo dhan indhahooda u soo jeediyay Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Yariso ayaa tilmaamay in guud ahaan dadka Soomaaliyeed ay qirayaan doorka weyn ee Turkigu uu ka qaatay dib u soo kabashada dalka waxaana uu xusay in kaalinta Turkiga ee Soomaaliya wax weyn ka bedeshay xaaladda dalka gaar ahaan waqtigii adkaa ee indhaha caalamka ay Soomaaliya ku soo jeedisay booqashadii madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan oo markaasi ahaa ra'iisul wasaaraha Turkiga uu ku yimid dalka Soomaaliya 19 August sanadkii 2011 intaas wixii ka dambeeyay 2011 waxa soo noolaatay rajada shacabka Soomaaliyeed waxa soo noolaatay in dalka uu noqdo amni iyo nabad waxa soo noqotay horumarkii shacabka Soomaaliyeed waxay aamineen inay leeyihiin dad walaalo ah u istaagay diyaar u ah isla markaana rajo geliyay taasoo maanta noo suurtagelisay inaan caawa halkan isugu nimaadno si aan dadkaas walaalaha aanahay aan u dhahno waa mahadsantiin mudane injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariso ayaa hoosta ka xariiqay in shacabka Soomaaliyeed habaalka Turkiga marna ilaawi doonin uguna mahad celinayaan taageerada iyo waxqabadka muuqda ee suurageliyay in wadankeena uu tallaabo hore u qaado isla markaana xajmiga taageerada ay bixiyeen la barbardhigi karin inta ay siiyaan wadamada kale Soomaalidu waa dad og cidda wax u tartay garanaysa dad runtii qab weyn leh isla markaana weligoodba aaminsanaa in aysan dhimanaynin mar walbana ku haminayay in qofkii walaalka dhabta ah inuu yahay qofka la arki doono marka baahida dhabta jirto marka ciddii markaas soo gurmatayna waxay noqotay dadka walaalaha aan Turkinahay maantana ilaa iyo markaasna aan naga tegin mashaariic fara badan fuliyay ha noqoto dhanka caafimaadka isbitaalka ugu weynaa sameeyay ha noqoto dhanka amniga iyo nabadeynta ha noqoto dhanka wadooyinka iyo horumarka dhanka waxbarashada dhan walbo ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariso oo dhinac taagnaa safiirka dalka Turkiga u fadhiya Soomaaliya danjire Olgan Bakar ayaa cadeeyay in xiriirka labada dal ka dhaxeeya uu tusaale cad u yahay taageerada aan shuruud ku xirnayn shacabka Muqdisho ku dhaqana ay si weyn uga dheregsan yihiin gacan siinta walaaltinimo ee Turkiga
inta badanna saaxiibka runta ahi waxaa la gartaa wakhtiga adag taasi oo micnaheedu tahay cidda ku garab istaagta wakhtiga ugu adag uu yahay saaxiibka rumaad. Rajab Tayyip Erdogan wuxuu noqday hogaamiye u istaagay caalamka islaamka isla markaana tusay imaatinka uu yimid inuusan ahayn istustus oo uu ahaa mid dhab ah kana dhabeeyay ballanqaadyadii uu sameeyey. Turkiyana Soomaaliya waxay isgarab taagtay wakhtigii ugu adkaa. ummadda Soomaaliyeed ayaa Turkiga waxay u arkaan inuu yahay walaal iyo saaxiib rumaad midaasi oo loo wada qiray si aan kala har lahayn. dalka Turkiga afarta nooc ee ciidan ee Soomaaliya ay leedahay militariga, booliiska, asluubta iyo nabad sugidda ciidan aysan gacan siin ma jiro. taas waa adag tahay mana jirto dal aan ka helno inuu dhammaan intaas ciidan nooc kala duwan oo dalkeena ay gacan siiyaan. 19 Juun sanadkan 2018 ayaa maamulka gobolka Banaadir soo celiyay qaar ka mid ah goobaha danta guud oo horey shakhsiyaad u qaateen lagana burburiyay dhismihii ay ka dhisteen goobahaasi. maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu burburiyay dhismayaal sharci darro ah oo laga dhisay meelo loogu talagalay danguuda gaar ahaan garoonka kubadda cagta LLB Jenyo oo ku yaala degmada Yaaqshiid. garoonkan ayaa waxa uu ka mid ahaa garoomadii kubadda cagta ku ciyaari jireen ciyaartoydii Soomaaliyeed gaar ahaan kooxda LLB Jenyo. maamulka gobolka Banaadir ayaa digniin isdaba joog ah u dirayay dadweynaha ku dhaqan gobolka Banaadir gaar ahaan kuwa deegaamaystay goobaha danta guud. dadka qaar ayaa si iskood ah u baneeyay goobahaasi danta guud kuwa kalena laga burburiyay kadib markii ay ka dhiga adeegeen digniinadii hore loo siiyay halka kuwa kalena ilaa iyo haatan ay ka dhiga adeegayaan digniinihii la siiyay lana gaarsiiyay sida uu sheegay maamulka gobolka Banaadir iyaga oo ku andacoonaya in goobahaasi iyagu leeyihiin hantidoodana ku bixiyeen. marka cid kasta oo isdhehayso laguma arkayna waa ku soo soconnaa cid kasta oo dan guud haysana waxaan rajaynaynaa inay si sharaf leh gacanta dawladda ugu soo wareejiyaan oo annagana waxaan ku dadaali doonaa inaan intii karaankeenna ah magaaladan inay ku soo noqoto sidii barisamaadkii ahaan jirtay oo la helo goobo badan oo bulshada ka wada dhaxeeya. 20 Juun sanadkan 2018 ayaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir daahfuray mashruuca taageerada horumarka iyo dhaqangelinta siyaasadda lagu daryeelayo qaxootiga dalka ku soo laabanaya iyo barakacayaasha gudaha. ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariiso ayaa daahfuray mashruuca taageerada horumarka iyo dhaqangelinta siyaasadda lagu daryeelayo qaxootiga dalka ku soo laabanaya iyo barakacayaasha gudaha. waxayna sheegeen inay muhiim tahay in laga wada tashado sidii xal waara loogu heli lahaa siyaasad midaysan looga yeelan lahaa arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha. mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa sheegay in ku dhawaad 2.6 milyan oo Soomaaliya ay barakac ku yihiin gudaha dalka sidoo kale 1.1 milyan oo qaxooti Soomaaliyeed ahina ay ku sugan yihiin guud ahaan caalamka ayna laga maarmaan tahay in siyaasadda lagu daryeelayo la meel mariyo si tacadiyada ay la kulmaan meesha looga saaro. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa isagana dhankiisa sheegay inay laga maarmaan tahay sidii xal waara loogu heli lahaa dadka barakacayaasha ah si ay u helaan xuquuq la mid ah midda ay helaan dadka caadiga ah. isla 20 Juun sanadkan 2018 ayaa shirka toddobaadlaha ah ee gudoomiyayaasha 17 degmo looga hadlay u diyaargarowga maalmaha xorriyadda natiijo wanaagsan ka soo baxay. shirka toddobaadlaha ah ee gudoomiyayaasha 17 degmo oo uu shirgudoominayay duqa Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariiso ayaa looga hadlay amniga daadejinta adeegyada asaasiga ah sidii kor loogu qaadi lahaa ololaha nadaafadda iyo bilic soo celinta magaalada u diyaargarowga maalmaha xorriyadda ee fooda nagu soo haya.
ugu horeyn ayaa warbixino la xiriira xaaladda degmooyinka laga dhageystay qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka iyagoona ka hadlay xaaladda degmooyinkooda isla markaana tilmaamay in meel wanaagsani ay marayso daadejinta adeegyada iyo wada shaqaynta shacabka iyo maamulka warbixinta amniga ayaa laga dhageystay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda mudane Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa lagu xusay in qorshayaasha sugidda amniga caasimadu uu meel wanaagsan marayo iyadoo shacabka laga codsaday inay sii xoojiyaan wada shaqaynta kala dhaxaysa hay'adaha amniga duqa Muqdisho ayaa kulanka ka sheegay in maamulkiisu uu mudnaan siinayo sidii amni buuxa loogu heli lahaa caasimada kaasi oo horseed u yihiin gudoomiyaasha degmooyinka taliyayaasha ciidamada iyo shacabka oo iskaashanaya 22 Juun sanadkan 2018 ayaa maamulka gobolka Banaadir ku casuumay caasimada dalka khubaro iyo injineero Turkish ah aduqa Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariso ayaa xafiiskiisa ku qaabilay khubaro iyo injineero ka socday dalka Turkiga waxaana uu kala hadlay sidii ay dawladda hoose uga caawin lahayd dib u dhiska caasimada gudoomiye injineer Yariso ayaa sheegay in ujeedka injineerada iyo khubradan ay casuumeen ay tahay sidii ay dib ugu howlgelin lahaayeen xarunta gaadiidka iyo dayactirka warshada samaysa laamiyada interloga bulkeetiga iyo sidii ay gacan uga geysan lahaayeen qorshaha magaalada oo loo yaqaan master plan duqa Muqdisho iyo khubarada ka socotay Turkiga ayaa isla qiray baahida loo qabo in mashaariic horumarineed caasimada laga hirgeliyo sida dhismaha wadooyinka guryaha iyo mashaariic kale oo shaqo abuur u noqonaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ayaynu ku soo gabagabaynaynaa maanta horumaradii iyo waxqabadyadii uu ku tallaabsaday gobolka Banaadir isbuucii la soo dhaafay waa Maxamed Cali Juxa idinkaga tegaya salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu هذا الكلام مع البدن وهايا